qaab nooceeya ayaad u adeegsatay baraha bulshada idinkoo ka qayb qaadanaya nabadeynta gobolka Mudug iyo magaalada Galkacyo 2020 arooskii ka dhacay Galmudug asna wuu xoojiyay saameyn buu yeeshay oo dhinaca baraha bulshada tusaale yar haddaan soo qaato 2017 Oktoobar 2 magaalada Galkacyo waxa ka dhacay barnaamij weyn oo nabadeed oo bahda waxbarashada iyo dhalinyarada iyo madasha nabadda isdhexgalku ay hormuud u hayeen ay soo agaasimeen waxaan isdhihi karnaa barnaamijkaas markii media iyo social media la geliyay baraha bulshada wuxuu Galkacyo ku soo jeediyay indhaha caalamka iyo indhaha gobolka iyo maamuladii iyo dawladda dhexdeeda qofku wax maanta faafinaya wuxuu kala yimid xaafadiisa dad deegaankaasna ah oo laakiin meelo fog jooga waxay isticmaalaan social xoogan bay u isticmaalaan afaraadka saacna ayuu qabiilkii buunbuunanayo waxa weeye qabiilkii iibinayo gadaya bay isticmaalayaan marka maadaama waxa weeye meediyahaasna uu saameyn yeelan karo sidee baynu u horjeednaa oo baraha bulshada fariimihii odayaashii dacadaha ka hadli jiray ay isku handadi jireen ama digniinaha isku diri jiray ka bacdina gacan ka hadal ka dhalan jiray waxa bedelay fariimaha nabadda ee maaragtay dhalinyarada ee hadda baraha bulshada isticmaalaan ama isdhexgalka saameynta technology-ga ku leeyahay nabadda iyo isdhexgalka nabaddaas iyo isdhexgalkaasi waa in sidoo kale ictibaar la siiyo ama we should consider waa in la tixgeliyo age distribution-ka ee mujtamaca da'da inay kula in la sameeyo beero iyo meelo nabadda lagu magac daray ama macaayib nabadda lagu barto ama lagana dhiso magaalada dhexdeeda nabadda ma dhiirigelin kartaa laakiin nabad ka qayb qaadan lahaa hadduu maanta asaga is horgeeyo yaa nabad nooga qayb qaadanaya yaase nabad noo matalaya dhalinyartii nabadda noo matali lahayd haddii maanta qabiil lagu ataagay yaa nabad noo matalaya qurbo joogtida soo ay jidhay oo oran jiray war waqtigiis ka lumin dad noocaas haatiin in oran jiray markii dambe saanu dhinaca xagga markaa u gudbnaan dhahno Galmudug baan joogaa Galmudug baan kafay ku cabayaa Galmudug baa saana oo la xasaasiyad magaca Galmudug laga qabay iyagii baa markay dalka dib ugu soo noqdeen hadda maalin kasta waxaan geeyaa qurbo joog baa waxaan geeyaa Galmudug oo safiir baa noqday halka ma aha oo kaliya in meeshan lagu dhex qabto xalku inta waa ka ballaaran xalku wuxuu noqonayaa marka mujtamaciyo dhan iskuulaadkii iyo markii hore iyo abaabulkiisa iyo waxbarashadiisa in ayadana laga dhigo wax kamida manhajka oo la yiraahdo media laana manhajka qof kastoo dhalinyaro ah waxaa laga rabaa social media iyo baraha bulshada oo isticmaalayo ama inuu wanaag ku baahiyo ama uu dadka dhibaateyn oo iska daayo ama wanaag sheeg ama iska dhaaf وقولوا للناس حسن dadka wanaag u dhaha waxa wanaaga fariimaha wanaaga kuwa dibashisiinta kuwa magaalada laamiyada jidadkeeda kuwa isdhexgalka waxbarashada isdhexgalka caafimaadka isdhexgalka dhanka ganacsiga dhinaca qurxoon oo maaragtay positive-ka markasta in qofku uu baahiyo oo ka qayb qaato fiditaankiisa talada koobaad aan siinaysaa